iyadoo inta badan Soomaalida ku nool waddanka Koonfur Afrika ay ku ganacsata xaafadaha isku raranka ah ee dadka madow ku nool yihiin ay la kulmi jireen dilal iyo dhac loo geysto ayaa haddana waxaa socda oo soo kordhay in gawaarida bukaanka lagu soo adeego iyo kuwa sida maalinlaha alaabaha bukaanka lagu keeno sida rootiga iyo caanaha ayaa waxa ay la kulmeen oo ay la kulmaan soo food saartay boob ay u geysanayaan dadka xaafadda soo gudan gaarigan waxaa laga boobayaa oo laga qaadanayaa rooti oo bukaanka xaafad ka mid ah xaafadaha isku raranka ah oo u geynayay kuwaasoo si maalinla ah bukaanka u qaataan dadkan madowga ah ayaa waxa ay yihiin kuwa aan xisoonin marka arkaan dhacdooyinka noocan oo kale ah iyagoo kooda weyn iyo kuwa yarba ay si isku mid ah ay halkan ugu soo xoomaan isla markaana ay u kala boobaan wixiiba nacfi leh ee halkaas yaalla. daawadayaal waxa weeyaan arrimaha noocan oo kale ah marka ay dhacaan waxaa sii dheer in booliska markii loo gudbiyo dhacdadan oo kale kiisaska laga diiwaangeliyo ay noqdaan dhacdo shacab ay geysteen ama boob dadweyne oo geystay in aan waxba laga qaban karin oo aysan dhicin in qof loo soo xiro maadaama shacab isku duuban ee fara badan ay iyagoo careysan dhacdada noocan oo kale ah ay geystaan gaar ahaan xilliyada ay mudaharaadayaan oo ay geystaan cabashadooda. daawadayaal waxaan ka codsanaynaa inaad muuqaalkan sii gudbisaan like-ta, share-ta iyo comment-ga aad ka bakhaylana subscribe-na aad saartaan kanaalka YouTube-ka. waa ku mahadsantihiin taageeradeena.